بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله صاحبي الدمانتين وإذ السلام يا waxaan u maleynayaa casharadii 3 kan ka horeeyay inaad soo dhageysateen ugu horeeyay casharkeenu kaga hadlaynay waa maxay forex iyo cidda ka shaqeysato forex siyaabaha looga shaqeysto iyo dhamaanba wixii khuseeyay forex oo bilow ahaa casharkeenu ku xigay oo ahaa dhamaan waxyaalaha lagaaga baahan yahay marka aad rabto inaad bilowdo ka shaqeysiga suuqa sarifka online-ka ee forex iyo casharkii ugu dambeeyay aynu ku soo qaadanay sida loo soo isticmaalo application-ka MT4 ama MetaTrader 4 waxa ka horeeyay isagana website-kii TradingView oo ahaa shaashadii aynu suuqa ka analyze gareynay inaynu iyadana si fiican isla soo qaadanay si fiican isla soo qaadan dhignay haddii aad nagu cusub tahay fadlan oo aad ku cusub tahay forex oo dhan casharkana ku cusub tahay fadlan soo daawo 3 cashar oo kan ka horeeyay si aad fikrad fiican uga soo qaadato waxa uu yahay forex iyo sida looga shaqeysto okay saaxiibayaal soo dhawaada maanta waxaan ku sharaxayaa casharkan istiraatiijiyad muhiim ah oo aad u fudud istiraatiijiyad uu ku shaqeysan karo qofka forex ku cusub oo aan xog badan ka hayn uu isla maanta ku shaqeysan karo iyo istiraatiijiyad sidoo kale uu ku shaqeysan karo qofka forex muddo badan ku jiray istiraatiijiyad powerful ah oo ku xaqiijinaysa guul hadii aad siday tahay isticmaasho kaligeedna aad ictimaado istiraatiijiyadan waa istiraatiijiyad breakout ah waxay inoo tibaaxaysaa ama inoo sheegaysaa zoonka ugu adag ee suuqa ku jiro zoonka ugu adag ee suuqa ku jiro bay inoo sheegaysaa okay zoonka ugu adag ee suuqa ku jiro inta badan Fibonacci-ga waxyaalaha lagu qiyaaso waxa kamid ah inuu yahay zoonka 61ka ama 61da 61daas waxa weeye probability ahaan suuqa 90% meesha loo maleynayo inuu ka soo noqon doono haddaba zoonkaas hadii uu suuqu jabsado oo uu dhinac meesha uga noqon lahaa maahay meeshii kale uu jabsado macnaheedu waxa weeye suuqaas inuu soconayo oo meel celinaysa aanay jirin haddaba istiraatiijiyadii baynu system inoo fududeeyay u helay insha Allah systemkan waa systemka aad u jeedaan waa systemka inoo sheegaya hadii waa aragtaan zoonkan jaalaha ah waad aragtaan zoonkan jaalaha hadii suuqu uu kor u jabsado macnaheedu waxa weeye inuu 30 bib 50 bib ilaa 70 bib oo accurate ah inuu suuqu ku soconayo aad si fiican uga faa'iidi doonto haduu hoos u jabsadana macnaheedu waxa weeye TB1ka meeshu systemku ku dhigayo ilaa TB2ga inaad ka qaadan doonto oo ka faa'iidi doonto stop loss-kiina uu ku dhigaya hadii aad bay aadana TB1kaagi iyo TB2gaagi iyo stop loss-kaagiba meesha ku dhigaya macnaheedu waxa weeye systemkan hadii aad ku shaqeysato ama aad isticmaasho in aad forex school badan ka gaari doontid asxaab badan oo aan la wadaagnayna waxa weeye natiijo fiican bay ka gaareen adigana insha Allah waxa ku rajeenayaa inaad natiijo fiican ka gaari doontid hadii aad isticmaasho okay suuq walba oo istiraatiijiyadan lagu dabaqay waxaad aragtaa meesha uu jabsaday inuu si fiican uga dhaqaaqay TB1ka ilaa TB2ga gaaray hadda lacagtaasi waa CAD GBY waa Canadian Japanese Yen waxay u jabsaday xageeba suuqa loo soo jabsaday zoonkeeni jaalaha ah waxa loo soo jabsaday dhinaca selka waa aragtaan suuqii ilaa TB1kaagii uu ku gaaray wuu dhaafay ilaa intee buu socday wuxuu socday masaafo gaaraysa ilaa 300 oo bib ku dhawaad buu socday okay imagine hadii aad one lot kaliya ku gali lahayd lacagta ka sameyn lahayd haddaba suuqan aan eegno waa maxay waa GBBCHF sell baa loo jabsaday TB1 iyo TB2 waa ku gaaray ilaa intee buu ku socday waa aragtaan saaxiibayaal suuq walba oo adeegto oo lacagtan ay jabsatay suuq walba oo jabsaday kan mar dhaweyd hadda la noo jabsaday suuqan suuq diyaar weeye anigu waa galaya waxa weeye waa Euro GBY sell baa loo jabsaday Euro GBY sell baa loo jabsaday TB1ka iyo TB2gana way gaaraysaa Euro GBY hadda la noo jabsaday TB1ka iyo TB2gana way gaaraysaa wayna noo dhaafaysaa insha Allah suuq walba istiraatiijiyadan aad ku eegtahay saaxiibayaal way ku waafaqaysaa si fiican oo qurux badan bay ku waafaqaysaa lacagtana way dhodhoodahay waa Euro CHF hadda inoo jabsanaysaa candlekaasi haduu inoo jabsado oo banaanka ku xidhmo sell baynu u galanaa TB1ka iyo TB2gaba waa ka qaadanayna TB2ga iyo TB1ka ka qaadanayna hadda kan inooma dhawa markuu inoo jabsado waa gali doona insha Allah istiraatiijiyadan maxay tahay saaxiibayaal haddaba waxa weeye zoonkaaga jaalaha ah
suuqu dhinaca uu kuugu jabsado hadduu bay kuugu jabsado iyo hadduu sell kuugu jabsadaba waxa u galaysaa meeshuu kuugu jabsaday confirmationna maxaa ku noqonaysa candleka kuu jabsaday inuu barigiisu u banaanka ku xirmo wigiisu inuuna ku xirmin barigiisu haddii uu banaanka ku xirmo istiraatiijiyada waxa u galaysaa dhinaca uu kuugu jabsaday baa u galaysaa hadduu bay kuugu jabsadana bay baa kuugu galaysaa hadduu sell kuugu jabsadana sell baa u galaysaa guarantee waxa ah 90% la hubaa suuqaasi inuu ku gaarayo TB1 kaaga iyo TB2 kaaga haddaba saaxiibayaal waxa idin rajeynayaa sida dad badan ama dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo fursad ganacsi oo cajiib ugu noqday suuqan inuu idinkana idinku noqon doono ana ka shaqeysan doontaan insha Allah istiraatiijiyadan isticmaala systemkana WhatsApp-kayga la soo xiriir qof walba oo u baahan insha Allah waa u diraya systemkan waa system aad u fudud waliba wuxuu ku dheeryahay systemkani gambaleel buu ku soo diraya suuqu marka uu jabsaday gambaleel baa ku soo qeylinaya computerkaaga marka ku xirato MT4 kaaga gambaleel baa ku soo qeylinaya kule way jabsaday suuqa ka faa'iideyso gal marka systemkan waa system aad u muhiim ah qof kastana anfacaya kii ku cusub iyo kii aan ku cusbayn kii forex ka niyad jabay kii ma garanaysaay waqti badan aan u baahnayn inuu analyze iyo waxa geliyo suuqan استراتيجية aad u anfacaysa waa system muhiim runtii qofkii u baahan insha Allah lambarkayga WhatsApp-kayga la soo xiriiro waa siinaya qof walba aad ba mahadsantihiin wa salaam alaykum